ان daawadayaal soo dhawaada idil ahaantiin meel baad naga daawanaysaan halkan barbarkayga waxaa taagan Cabdikariin Maxamed Xirsi guji oo kamid aha ciyaartoyda caasimada ahna kabtanka kooxda ciidanka qaranka ee gaashaan muddo 6 bilood ayaad soo ciyaarayseen horyaalkii caasimada Hargeysa iyadoo kulankiina la gaarin ay horyaalka muran galay waxay idinka horeysay kooxda Goodir hal dhibic iyadoo kulankiina harsan yahay kulankii maanta ayaa lagu celinayaa go'aan baad soo saarteen maalinnimadii doraatole ahayd sidaad u aragtaan Cabdikariin iyadoo xiriirka ku dhiirtay inuu kulankii qabto isagoo xal raadin wallahi Sakariyo horta 6 bilood baan soo ciyaarinay tartanka horyaalka caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland xiriirku ciyaar bay shaaciyeen ay ku qabanayaan Boorama iyo Berbera ciyaartaas sabab alaaliye sabab loo qabanayo xaalad jirta la nooguma qancinin ciyaar baa jirtay ciyaaruhu sibay u kala horeeyeen sida ay u kala horeeyeen go'aankeedu waxa iska lahaa xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland sababuna isugu yeeray oo gudoomiyaha xiriirkana arrinka shaaciyay inaanu kala horeynano ciyaaraha annaga iyo Goodir iyo Waxool iyo Banka marka waxay shaaciyeen ciyaartaasi in saddexda ciyaarood u dambeeyay ka dhawaajin inayna haynin garoomo ay dadkii culayska kaga kala yareeyaan go'aankana iyaga qaatay annaguna xaalad kasta oo imanaysay haddii xataa inagu adag tahay waxaan u qaadanaynay si aan u ilaalino shuruucaha u yaalo kubadda cagta iyo xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciyaarahaas waxay go'aamiyeen xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland in saddexda ciyaarood aan u qoryotamino sidaan u soo kala horeynayni waan u qoryotanay hal ciyaar Goodir baa naga heshay iyo Waxool labada ciyaarood kalena annaga helnay oo gaashaan ahaan ka dambeynay sabab ciyaaraha aad bay isku murugsanayeen dhibcahayguna xoog bay isku dhawaayeen kooxda barbaraha gasha ama laga badiyaaba waxay luminaysay hanashada horyaalka caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland taayoo ka duulayeen waxay keeneen go'aanka qorituurkana nasiibka labadii ciyaarood u dambeeyay annaga ayaa helnay xiriirku wax go'aan oo ka dambeeyay ciyaartii bisha kowdeedii waxa ciyaartay Goodir oo nagu horeysay iyo Waxool ciyaartaasi xaaladihii ay u istaagtay oo dhani wixii lagu dabaqi lahaa waxay ku qoran yihiin buugga xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay saxeexeen dhammaan kooxaha heerka koowaad iyo dhammaan kooxaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhisanay kuma aysan dabaqin xiriirku wixii qaanuun ay qorteen kooxahaasina ay dhammaantood saxeexeen waxa dhacaysay ciyaarteedii oo ka dambeysay 4 bisha Banka iyo gaashaan ciyaarihii ka horeeyay oo dhani way qabsoomeen oo si habsamiyay oo sidii hore garoonka wax abnidarre iyo rabshadi kama aysan jirin sidii awalba loogu ciyaari jiray baa loogu ciyaaray ciyaartii gaashaan iyo Banka sabab alaaliye sabab ay u baaqatay xiriirku nooma aysan soo sheegin waraaq nooma ay soo gudbin go'aan kama ay soo saareen haddana waxay yiraahdeen go'aan waxaan ku gaarinaynaa ciyaartii waxaan ku celinaynaa Waxool meel alaaliye meel ay kaga qoran tahay buugga ciyaar baaqatay oo lagu celiyana ma jirto koobka adduunka iyo kooxaha kale ciyaaraha dunida ka qabsoomana meel ciyaar ay baaqatay lagu celiyay ma jirto garsoori ciyaarta dhexdhexaadinay wuxuu saxeexay riboodka ciyaarta wuxuuna ku dhameeyay gool iyo gool riboodkaas xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa og yahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu way og yihiin waad ogtahay dunida Sakariyo waxa lagu kala qaadaa gacan baa lagu kala qaaday oo Maradona gacan kaga dhilinayay ciyaartaas dib looguma soo noqonin cid kasta oo ciyaaraha ku taqalsho kubadda cagta hayb ama sheeganaysaana way ogtahay iyadoo ay si taasi jirto haddana anagu wali u dhabar adeegayna inaanu ilaalino sumcadda waddankayaga sumcadda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sumcadda madaxdayada waxaanu aqbalnay go'aankoodii ahaa haddana waxa ay mar labaad yiraahdeen iyadoo in ciyaarteedii annaga iyo Banku qabsoomin ciyaari baanu dhamaan dib ugu celinaynaa shuruuc sabab ay uga noqdeen nalama aysan soo wadaagin sabab marka annagu aanu u tagno Boorama iyo sabab aanu wali ciyaarteedii iyadoo la noo sheegin sababta ay u baaqatay annaga iyo Banku aanu ciyaari lahayn ma garanayno wallahi walina waxaanu ku codsanaynaa xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhuba in ay ku soo noqdaan sharcigii online wali bilis madaxdeedu waan ixtiraamana wax fahmeen oo gamu kiin iman wax deelqaaf noogu kiin iman wax xaflagaada idinku kaminan wali waxaanu codsanaynaa in la nagu dabaqo
xidhiidhkii iyo wixii idinku aad qorateena shuruucaad waddanka u dejiseen. cabdikariin warqad ma idiin soo direen ma idiin yimaadeen sida kooxaha kale xal loogu raadinayay xal ma laydinku raadiyey wallaahi sakariyow saaxib waa runtaa intaasoo dhan waanu arkaynay in xal la raadinayey ciyaartaasi istaagtay waananu ku qanacsanno waxaanu ka xunnahay ma jirto oo dee haddii ciyaarihii xal loo helayo waanu ogon lahay weli annaga iyo baanka wasaaradduna lama aysan kulmin walaa agaasimaa nala kulmin walaa wasiir baa nala kulmin walaa guddoomiye xidhiidh baa nagu kulmin noomana aysan yeedhin dee annagu ma garanana sabab markaa annaga dee iyagu dee go-aamada ay keligooda ay u gaadhayaan because of go-aankan qayb baanu ka nahay oo in annagana dee lana qanciyo oo ciyaartaydii sababtii ay u baaqatay lanoo sheegay ahayd in xalkaygii la raadiyay ahayd dee weliba annagu dee sidaasoo nahay wax afxuma iyo aflagaada maana aansan geysanin alaana weliba sidii baanu ka nahay dee wallaahi ma garanayo warqad nooma aysoon dirin mas-uuliyiinteedii dee lama aysan wadaagin sababta ay ciyaartaydii u baaqatay 4tii bisha dhici lahayd ciyaarihii kale ka horreeyay oo dhan way dhaceen weli se noomay soo sheegin sababtaasina waa sababta aanu ka sugayno galabta kulankii baa la ciyaarayaa kooxihii rajadiina ku xidhnayd idinkama ciyaaraysaana waad diideen taageerayaal badan baad caasimadda ku leedihiin iyo guud ahaan gobollada kooxaynu ka dhisan yihiin 6 bilood bay garoonka u imanayaan cadceedda maalin kasta maxaad kaga dareen celinaysaa cabdikariin wallaahi de walaal sakriyow ma anagu de waan run horta waan raali gelinayaa taageerayaashii dhammaan meel kasta ay joogaanba waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba laakiin wixii anagu aan u baahannahay waa sharci wax ayagiina kama hadhayno wixii aanu 6 bilood ku daba soconay dee sharci baan ugu tegaynaa waddanku maxkamadu leeyahay shuruucaya meel lagu kala bixu leeyahay dee maxkamadaha iyagoosan u gudbinna sharcigii waanu haysanaa kooxda cashuur bay bixisaa ciyaartooyda cashuur bay ka qaadaan dee noqon mayso dee xidhiidhku dee sharcigu dee ma noqonayo qof walba inuu sidii uu yahay de ka yeelo laakiin waxay noqonaysaa dee wixii ay noogu qoreen buug bay noo qaybiyeen oonu yidhahdeen buuggaasaanu ku maamulaynaa tartanka caasimadda jumhuuriyadda somaliland iyo dhammaan guud ahaanba buuggii baanu weli anigu sidanaa wax kasta oo ciyaaraha ka soo qabsoomi lahaana buuggaas ayay ku qoran yihiin sabab allaaliya sabab la iskaga indhatirayo oo wixii buuggan ku qornaa weli lanooma sheegin xidhiidhka iyo wasaaradduba waa madaxdeydii weli namay odhanin buuggan shuruucihiisi waanu ka laabanay sharcigan kale ayaanu idinku dabaqaynaayo u qabsoomo oo waraaq noomi keenu wax qoral namay siinin dee sabab allaaliya sabab markaa anagu de weli buuggii baanu ku taagannahay xalleeni wani madaxdeydii baa tii waanu ixtiraamina weli alaana dee wixii adinku aad ku qorato inaad noo go'aamisan aad nagu maamushaan wixii baanu weli haysanaaye dee haddaad leedihiin sharcigii waanu ka guurnay oo sharciga fiifaanu idinku maamulaynaa shuruucaanad qabanaysaan waxayduna tusi halkay sharciga fiifa ka qoran yihiin haddii aadna leedihiin waxaanu ku maamulaynaa xidhiidhkii waxaanu ku maamulnaa buuggii xidhiidhku qoray baanu tartamada ku maamulaynaa dee waxayduna tusisaan shuruucaan idinku aad fulinaysaan halka uu kaga qoran yahay buugga xidhiidhka jamhuuriyadda somaliland oo guddoomiyaha ku saxiixan yahay guddoomiyaha xidhiidhku intaasoo labadaas sano ee uu jira xidhiidhka waxaa la doortay 2020 baa la doortay bishii 12 intaasoo dhan wixii ka dambeeyay oo xidhiidhkaasi wuxuu ku maamulayay buugga dee weli lama aysan tusin qoraal kale oo ka soo baxay oo lama odhan waa la abdhiid gareeyey oo lanama odhan fiifa laga xidhiidh sharcigii buuggeena muran buu galo sharcigii fiifa u guurayna lanama odhanin dee markaan waxaan leenahay sababtan xataa idinku aad balbuuggiini adinku aad qorateen aad noo qaybiseen inaad nagu ganaaxayseen sanadkaas iyo sanadkii ka horreeyeyba dee noo sheega wax culaysa naguma haysa anaga ka gaashaanahana hadday qaado koox kale iyo haddii ay koox kale hanato sanadkii horeba way qaadigoodi waa noo hambalyeynay iminkana hadday qaato sifo sharciga ku qaato waanu hambalyeynaynaa koox kale haddii ay koobkii guddoonsato sifo sharciga ku waafaqsan waanu hambalyeynaynaa waddanka shuruucaa u jiro lagu kala hagaa weli shuruucihii baanu ku taaganahay madaxdeydii maanaan deelqaafin afxumo umaanaan geysanin adin xumo umaanaan geysanin weli waxaanu ku taaganahay sharcigii waxaan leenahay sharcigii kusoo laabta haddii aad sharcigan bedesheenna sharciga kaleed nagu maamulaysaan noo keena ugu dambeyntii cabdikariin kubadda cagta guud ahaan caasimadda waxay wajahaysay mugdi badan maalmihii ugu dambeeyey waayo arag baa tayn badan kusoo jiray sportska fariintaad u dirayso guud ahaan ciddii ay khusayso iyo dhalinyarada sportska iyo fariinta waayo aragnimo maxay noqonaysaa wallaahi de kulley horta wax kasta oo adduunka ka dhacaa dee niyow ganaax iyo waxay leeyihiin iyo dee iyo cawaaqib qofku uu la kulmo ciqaabo ni horta waan ka xumahay dee wixii dhacdooyin ka dhacay nagu cusbaa ugubka ahaa waxaan rajaynayaa inayna dhaqamada noocaasi dib u soo noqonin waxaan ka waaninayaa dhalinyarta da'yarta soo koraysa in ayna samaynin ficilo sumcaddooda wax u dhimaya inayna samayn ficilo sumcadda waddankeena wax u dhimaya inayna samayn ficilo wasaaradda iyo xidhiidhkeena sumcaddiisa wax u dhigaya hoos u dhigaya
waxaan leeyahay ciddii qalad ku kacday raaligelinteeda ha ka bixiso waxaana rajaynayaa oo niyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba codsanaya warniyo afxumada iyo adduunxumada aynu ka deena garsoorku waynu ognahay xaaladda uu ku sugan yahay waa ninkaa la yidhi 22 nin u garsoor dee kolley toole dee xaalad kastaana way imanaysaa iyagoo safar inoo soo galay haddana inay adduunxumo iyo dee keedyar ka qurbo ma qurxinayo nin wasaaradda iyo xidhiidhkana waxaan u diri lahaa in aada loo adkeeyo amniga garsoorka oo xil weyn la iska saaro insha allah waxaan rajaynayaa dee wixii dhacdooyin dhacay inaynu wax ka baran doono dibna ayna usoo noqon doonin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu